Hasaawaha ama shukaansiga waa gogol xaarka ama wadada loo mari lahaa guurka. Hasaawaha kiisa wanaagsan waa mid lama huraan ah samankan la joogo si aad isaga hubiso qofka aad nolosha la wadaagayso. Horey waxaan ugu soo hadalnay 6 stage oo uu maro xiriirka guurka iyo ogolo maanta inaan kula wadaago 5 marxaladood oo uu maro hasaawaha ama shukaansiga. Marxaladda koowaad soo jiidashada. Xiriirku wuxuu bilowdaa marka aad indhaha ku dhufato lamaanahaaga cusub. Inkastoo aydan weli wax hasaawaha bilaabin, haddana waxaad dareemaysaa awood aadan dafiri karin taasoo kugu jiidaysa qofkaasi cusub xaggiisa. Xaaladdaasi waxaa laga yaabaa qofka inaad u tagto oo aad isbarto. Waxay sidoo kale tani noqon karaysaa qof aad ku aragtay social media oo aad ka heshay kadibna aad go'aansatay inaad isbarataan. Marxaladda labaad, inaad qofka wax badan ka barato. Marka uu qofka ku soo jiito, caadiyan waxaad dareemaysaa inaad doonayso inaad wax badan ka sii barato. Marka qaar waxaan qofka wax badan kaga ogaanaa wada sheekaysi aan la yeelano. Xilliyada qaarna waxaan wax badan kaga ogaan karnaa marka aan check garayno profile-dooda social media. Kawa fiican waxaa laga yaabaa inaad ka waraysato asxaab aad isla wadaagtaan. Dhammaan macluumaadkaasi cusub waxay kaa caawinayaan inaad go'aansato inuu qofkaasi kugu qalmo iyo in kale. Marxaladda saddexaad, dhisidda kalsooni dhexdiina ah. Daraasado psychology ah oo ay soo sameysay jaamacadda Oxford ayaa lagu ogaaday in marxaladda is-aaminaadda ay tahay tan ugu weyn ee xiriirka lamaanaha. Marxaladdani waa xilliga lamaanayaashu hubka iska dhigayaan iyagoo tijaabinaya in xiriirku yahay mid xasilan oo la isku halayn karo mustaqbalka. Marxaladdani waxaad sidoo kale ku ogaanaysaa in lamaanahaagu yahay mid daacad ah, dagaal badnayn, sidoo kalena cafis badan. Marxaladda afaraad, bilowga hasaawaha dhabta ah. Waqtigani waa xilliga ay lamaanayaashu bilaabayaan inay ballamaan oo ay is arkaan. Marxaladihii hore ma aydan haysan isku halayn aad isku arki karteen, hase yeeshee marxaladdan labadiinuba waxaad gaarteen heer aad is aamintaan iskuna aragtaan. Mar kasta oo uu is araggu bato waa mar kasta oo uu xiriirku emotion ahaan xoogaysto. oo marxalad sidoo kale labadiinuba si furan aad ugu wada hadlaysaan, wax walbana aad iskugu sheeganaysaan, sidoo kale aad ugu wada hadlaysaan sidii aad noloshiina u mideyn lahaydeen iyo qaabka aad isku guursan lahaydeen. Marxaladda shanaad waa xilliga la isguursanayo, lamaanayaashuna ay nolosha wadaagayaan, bisha malabkuna ay bilaabanayso. Waa muhiim lamaanayaashu inay maraan marxaladahan ka hor intaysan isguursan si ay wax badan isaga ogaadaan, xiriirkuna baaqi u ahaado. Haddaba marxaladee ayaad adiga soo maraysaa? Nagula fikirkaaga qaybta commentiga. Sidoo kale ha iloobin inaad subscribe tiraahdo kanaalkan, gambaleelkan aad furato si aad ula socoto mowduucyada xiga. Mahadsanid.